degmada Salaxley waxaan cid kastoo reer Soomaaliya u sheegayaa doorashada madaxweynaha wax ka horeeyo oo ka dhici kara ma jiro waxaan gedo inay baryo mooyeen aan baryayaa ma jiro labada gudoomiye mowqafkii ay ka dhawaajiyeen ee yiraahdeen doorasho ta madaxweynaha ka soo horeynaysa ma jirto waanu ku ayidnaa anagu labada xusbe mucaaradkaanu taageersanay anagu kana dhici mayso deegaankan doorasho ka soo horeysa tan madaxtooyada halkan oday koofeed loo galiyay meehi oday cumaamad ka soo wadana meehi xildhibaan ka soo baxay xildhibaankii koobaad ee xisbiga kulmiye ka soo baxay baanay 13 sanadoodna maayir baan ka ahay amba maayir ku xigeen min dadkiisa iyo ummadiisaba hor socdaanay oo dhex socda oo hareer socda degmada Salaxley waxaan cid kastoo reer Soomaaliya u sheegayaa doorashada madaxweynaha wax ka horeeyo oo ka dhici kara ma jiro wallaahi inaanu jirin ma dhici doonto cid kasta waxaan u sheegayaa waryaada waxaan gedo inay baryo mooyeen aan baryayaa ma jiro ifaarmeed xaqiiqa xisbiyada in u cudiyo wadani mowqifka ay maanta gaadhin waanu ku taageersanay waanu la hor soconaa waanu ku garab taaganay labada gudoomiye mowqafkii ay ka dhawaajiyeen ee yiraahdeen doorasho ta madaxweynaha ka soo horeynaysa ma jirto waanu ku ayidnaa anagu doorashadii madaxtooyada mid ka horeysa ma jirto soo iskuma raacsanin aniga magacaygu waa Iid Jamac Faarax waxaan ahaa xildhibaanadii golaha deegaanka ee hore taaka halkan aanu ka hadlaynaa aan joognaa waa xaruntii degmada Salaxley shacbi weynaha iyo xafladda maanta isbahaysiga labada xisbi ee wadani iyo cid iyo taageerayaashoodii annaga oo matalayna magaca degmada Salaxley annaga iyo shacbi weynuhuba waxa aanu taageersanahay oo isku raacsanahay mowqifka labada labada xusbe mucaaradkaanu taageersanay anagu reer Salaxley anagoo ah inaanu labadii xisbi qaran aankooda ayaanu taageersanahay dadkan aad arkaysaa waa dadkii reer Salaxley ee taageerada labada xisbi mucaarid taageerada labada xisbi mucaaridna wax la qarin karo ama la yasi karo oo la yareysan karo ma aha kana dhici mayso deegaankan doorasho ka soo horeysa tan madaxtooyada annagoo ah dhalinyarada degmada Salaxley waxaanu taageersanahay go'aankii labada xisbi qaran ay soo jeediyeen kala noqoshada madaxweynaha kalsoonida ah doorasho madaxweynaha ka soo horeysaana kama dhacayso degmada Salaxley inaan iyaga hortood iyo dabadoodna wax doorasho madaxweynaha kadamaaanu dhacayn ma dhaca karo ma dhacayo waxaan soo dhaweynayaa go'aamadii ka soo baxay xisbi mucaaradka wadani iyo cud waan taageerinaa masha Allah anagoo ku hadlana afka degmada Salaxley waxa weeyaan waxaan u sheegayaa inaan doorashada madaxweynaha doorasho ka horeysa aan ka dhici doonin deegaanka degmada Salaxley mid kale oo sheegaya odayaasha la abaabule ee lacagta la siiyo ma matalaan masiirka degmada iyo dhalinyarada annagu maadaama aanu nahay dhalinyaradii degmada Salaxley waxaanu taageero u nahay xisbigooda cid afkayga annagu nagu yaala ku hadli kartaana ma jirto maadaama sidaa tahay cid kastoo degmada ka dhex hadashay wax kasta iska sheegtay waxaanu arkaynaa aan gaaslayaal iska hadlay afkaygana cidna kuma hadli kartaana nagu yaala ku hadlayna maadaama sidaa tahay waxaan si gaar ah u sii taageersanahay hadalkayga ka soo baxay gudoomiyaha ruuxiga gudoomiye Faysal Cali Xuseen oo leeyahay gudoomiye kelmadii